waxaa jira arrimo badan oo kaa caawinaya inay dadka ku xiiseeyaan adiga. Waad u baahan tahay dadka inay inta badan kaa dhigtaan qofka ay indhaha ku hayaan oo inta badan ay u arkaan qof shidan. Haddaba arrimahan rag u gaar uma aha, xitaa gabdhaha way ku jiraan. Waan aaminsanahay tani inay aad ku caawin doonto. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir kana mid noqo asxaabta shidan ee loo xiiso. Sidee taa ku samayn kartaa? Waa su'aal weyn. Bani'aadamka dhammaantood waxa ay ka midaysan yihiin jacaylka waxyaabaha qurxoon. Hadday ahaan lahayd dhaqamo ama dabeecado ama sharciyo la sameeyo. Haddaba intaas iyo in ka badan ayaan halkan kula wadaagi doonaa. Ma bilaaban karnaa? Waan filaa inaad baskooda saarantihiin. Let's go. Lambar 1. Jirkaaga. Mowduucan waxa ugu muhiimsan waa sida uu jirkaagu yahay. Taasina macnaheedu maaha inaad buuran tahay ama inaad caato tahay ama inaad dhexdhexaad tahay. Balse shakhsi waliba waxa uu leeyahay waxyaabo soo saaraya oo qurxinaya. Shakhsi waliba wuxuu leeyahay waxyaabo soo saaro, yacni style-kiisa waxa ay ka dhigi karaan fit ama qof soo saara quruxda dabiiciga ah ee ku gidaaman. Tan waxay aad muhiim ugu tahay haweenka. Waa inaad ugu yaraan kala fahansan tahay labiska isku soo baxaya. Rag hadday tahayna waa inaad aad u fahansan tahay barfuunada kugu habboon, jeenisyada aad xiranayso, surwaalada. Micno ma lahan inaad buuran tahay ama caato tahay, ee waa inaad garan kartaa waxa adiga ku qurxinaya. Dad badan ayaa aaminsan in jirkoodu uu ku xiran yahay labiska. Haddaba ogow, waxaa jira kumanaan adiga kula mid ah, haddana leh soo jiidasho waali ah. Saaxiib, hadduu jeebkaagu kuugu xun yahay, maxaan kuu samayn karaa? Aad baan uga xumahay, laakiin haddii aad xoogaa isku daydo oo aad heli karto labiskiisa ugu shidan, hubaal waa soo ifbixi doontaa. Umana baahnid jirkaaga miisaankiisa inaad ku mashquusho ama inaad sacaateedo. Ugu yaraan aad iska dhigto dhexdhexaad. Fiiro gaara, haddii aadan aqoon sida loo xusho labiska kugu habboon, fadlan YouTube-yada ka baro. Lambar 2. Sirta ugu badan ee aynu dadka fahansanayn waa halkan. Xiro dhar kala duwan. Run ahaantii tan aad bay kuu saameyn doontaa haddii aad sidan samayso. Tusaale, dhar cusub baad soo iibsatay, waxaad samaysaa inaad iska xidhnaato dharkaas ilaa ay midabkoodu ka lumo, caddaad uu noqdo. Dharka isku badbedel. Maalinba mid xiro, kaa kalena habay oo feeray oo xareey oo si uu soo qurxoonaado. Timahaaga hagaaji. Haddii aad wiil tahay, mar walba isku day inaad qurxiso oo aad maydho, welibana aad siiso dawooyinka ay u baahan tahay. Sidoo kale, saacadaha iyo miraayadaha indhahana waa kuwa eegana qaybka quruxdaada. Miraayadaha indhaha waa kuwa xaragada iyo weliba soo jiidasha gaara leh. Waxaan kugula talin lahaa inaad isticmaasho okyaalada ama indhaha miraayadaha loo isticmaalo kuwooda soolarka. Isticmaal kuwani, waxay kaa dhigayaan qof soo jiidasha leh. Waxaan ku xijinayaa kabaha. Uma baahnid inaad xirato kaba aan islahayn. Kabaha iyo dharkaad xiran tahay waa inay isu soo baxayaan oo ay isu level yihiin. Ogowna, qodob kasta aan kuu sheegayo waa kuwa muhiim. Lambar 3. Codkaaga sare ha u qaadin. Goorta ay kula hadlayaan dadka, kor ha u qaadin. Sidoo kale, u yeel hadalkaaga xishood. Taa macnaheedu maaha ka xisho wax kasta. Soomaalidu waxay ku maamahdaa xishooda wuu qadaa. Waxay doontaba ha ahaatee, laakiin isku day inaad isku dheelitirnaato. Waxyaabaha ugu saameynta badan waxa waaye gabar inaadan codkaaga kor u qaadin. La hadal qofka, waxaad doontana kala hadal, laakiin qaylo maahan. Taas way ku saameyn doontaa. Ogow wiilow, adigana goorta ay kula hadlayaan dadka, ula hadal si degan oo khafiifa, fasiixna. Sidoo kale, ula hadal sida ugu macaan codkaaga. Goorta aad ka tagtana, waxaa la rabaa inay ku xiiseeyaan ama ku xiisaan. Lambar 4. Wiilow, markay gabadhi kugu daydo ha noqon jaanis gacad oo markiiba afka la gala. Isku day inaad dhahdo walaalo kuma fahmin, iyo inaad mararka qaar hadalka ku celiso, mararka qaarna aad ku adkaydo qofta. Dad qaar ayaa is dhihi doona, yaa si wax wada Cabdiraxiin jaanisan muddo gaadaya maad idhaafinaysaa. Warniyow, sidaasi maahan. Gabar ma jecla wax raqiis ah, baahanana uma baahna. Faarax, isku day inaad noqoto qof adag. Sidooduba waxay jeclaadaan waxa loo tiido. Isku day inaad ku adkaydo qofta heer ay tidhaahdo kan ima arkamaya. Dhegayso, si kastoo qofta ay qurxan tahay, muhiim maaha inaad isdaadiso. Ku adkeey xoogaa adigoo u baahan. Waad ila fahantay libaax? Tan raggu inay fahmaan ayay u baahan tahay. Wiilow, qiimahaaga sare ka dhig. Lambar 5.
gabaray si wiil aad ku kasbato dhoola cadayn uga jawaab wax kasto ay ku dhahaan. taas macnaheedu maaha waxaadan raalli ka ahayn ama qalad ah gebi ahaanba inaad u dhoola cadeyso, laakiin qodobka waxaan ka wadaa ninku waxa uu rabaa wax dareensiya farxad iyo waxa tusa hadalkiisa inuu yahay wax lagu farxo oo lagu qanaco. midna ogow, wiilashu way ku faanaan dhoola cadaynta iyo qosolka gabadha. mida kale, waxaa la ogaaday daraasaad la sameeyey gabdhaha Soomaalidu inay aad u cod macaan yihiin. taa keliya ma aha, xitaa qosolkoodu waa mid aad ku dareemayso farxad iyo deganaan. sidaas darteed ayaan usoo qaatay qodobkan. soo xalimood qurxantahay iska sii quruxsano, laakiin mid ma habboona inaad dhoola cadayn ku soo jiidato qof aad lacago iyo been aad ku wado. daacadnimo u isticmaal, haddii aadan qofka rabina runta u sheeg. sidaas awgeed anigu kugulama taliyeen qof inaad ku dhaawacdo qosolkaaga iyo dhoola cadayntaada beenta. waana waxa ugu badan ee ay dumarku isticmaalaan si ay qof u dhigraan, waayo waxay ogyihiin qosolkooda iyo dhoola cadayntooda inay wax kasta ku qaban karaan. lambar 6, mar walba cibaadada ku dadaal. haddii ay cibaadadaada keligeed aad meel saarto, wallaahi uma baahnid qurux kale. iyo aamiin, cibaadada nooc kastoo ay tahay, muuqaalka ay dhistaa, qof kastoo ku arkaana si dabiici ayuu iskaga qancaya. intaan arkay oo cibaado badan intooduba waa kuwa ugu qurxoon dadka. xaqiiqatan waxaan arkay qof xaqiiqatan aan isticmaal wax qurxiya jirkiisa, sidoo kale waa qof iska qosla, walwalna ma hayo. sidaasi la mid ah, dadku waa iska jecel yihiin. aniguba ka mid ahay. waxaan arkay dad aan weligay arag, hadda markay ugu horeysaan arkana wejiyadoodu aad bay u ifayaan, aad bay u quruxsan yihiin. mar walba waa kuwa dhoola cadeynaya, walwal kama muuqdo. sidoo kale farxadda wejiyadooda ayaad ka dareemaysaa iyo dhoola cadaynta. markaasi u fiiriso waa kuwa aad u barakaysan. sidaas darteed, maadaamaan ka hadlayno waxyaabaha dadka lagu xiiso geliyo, tanina qayb weyn ayay ka tahay, waana qodobka ugu horeeya. ogsoonowna, haddii samada lagaa jeclaado, dhulkana waa lagaa jeclan doonaa. lambar 8, muusig ha dhegaysan. tan kuma qasbanid, laakiin muusiga qalbiga ayuu qalaajiyaa oo qofka wuxuu ka qaadaa shucuubta qurxin lahayd. sidaas darteed waa inaad ku dadaashaa waxa ku qurxinaya adiga. dhibaatada kale ee muusiga laga dhaxlo waa madax xanuun, fikir daa'in ah, iyo sidoo kale walwal aan la ogeyn. sidaas darteed, maxaa walwal ku gelinayo? iska daa. lambar 9, xakamay waqtigaaga. saaxiib ha noqon qof markasta loo baahan yahay la heli karo, taas sharaftaada ay dhaawacaysaa. ninka ragga ahi waxa uu u baahan yahay waqtiyadiisa inay xisaabsan yihiin oo uu og yahay sida ay u baxayaan waqtigiisa. sidoo kalena ay dadku inta badan heli kareen, hadday dhacdana 10 ilaa 20 daqiiqo meelahaas inay jaanis u yeeshaan ay ku arkayaan, kadibna muddo aan la arkaynin. tan waxay badinaysaa qiimahaaga iyo rabaanshaha iyo xiisaha ay dadka ku qaadayaan adiga iyo muuqaaga. asxaabi, bal ii warama, annasoo layma xiisin, muddo isqariyey. ugu dambeyn, lambarka 10aad ku soo biir kanaalka si aad u hesho macluumaad intan ka badan. like-taada wax badan ayay ii tahay. I hope inaad fahanteen muuqaalka kan. See you soon. Bye bye.